kale Yamaanka miidiya su'aashu waxay ka taagan tahay dilkii Jamaal Khashoggi xaguuba ku lug haya dilka Jamaal Khashoggi sama looga horeeyay. haddaynu dib ugu laabano 2003 wixii dhacay waxa la afduubtay Suldaan bin Turki waxaana soo bandhigaynaa qaabkii loo afduubtay daawasho wanaagsan. Suldaan bin Turki ma uusan filanaynin inay tahay mid ugu dambeysay ee noloshiisa wax badan ka bedelayso. waa la kulankii Suldaan bin Turki ee afduubkiisii maalintii loogu geystay Geneva gaar ahaan waddanka Switzerland. waa kulankii lagu afduubanayay Suldaan bin Turki. waa subax Alisaya Suldaanka ayaa raba inuu la soo quraacdo qaraabadiisa qayb ka mid oo timid Geneva. Suldaan bin Turki wuxuu ka mid yahay qoyska reer boqortooy wuxuuna ka soo horjeedaa boqortooyadii xilligaa jirtay. waxaana adeer u ah King Fahd. qofkan aad u jeedaan waa amiir ka tirsan boqortooyada magaciisana waxaa la yiraahdaa Cabdulaziz bin Fahd. waxaa la bilaabay quraacda cunisteedii. qofkan aad u jeedaan waa wasiirka arrimaha diinta iyo qaafta magaciisana waxaa la yiraahdaa Sheikh Salah al-Sheikh. waxaa hadalla dhex maray xilligii quraacda labada amiir Suldaan bin Turki iyo amiir Cabdulaziz bin Fahd. amiir Cabdulaziz bin Fahd ayaa dalbaday in uu suldaanka ku laabto Sacuudiga una sheegay inuu mas'uul u asaga ka yahay inta wax laga xalinayo. amiir Suldaan bin Turki ayaa arrintaa diiday. kadibna waxaa dhacday amiir Fahd taleefan ayaa u soo dhacay markii uu dalbaday in wax yar la siiyo si uu taleefanka u soo dhammaystana waxaa isla markii la kacay Sheikh Salah al-Sheikh asagana sheegay inuu wax yar kadib uu soo laaban doono. waxaa meesha looga kala tegay amiir Suldaan bin Turki wax yar kadibna waxaa u yimid laba nin oo afka u duuban yihiin. dagaal dheer kadib waxaa dhacday in amiirka gacmaha laga qabto kadibna cirbad daroogaha lagu daro. amiir Suldaan bin Turki markii cirbadda ay gaartay waxaa lagula cararay eelaboorka xilliga ay ku sugaysay diyaarad qaas ah. saacado kadib waxaa laga dejiyey amiirka magaalada Riyaad. sidaa darteed waxaa daawada halkaa kaaga muuqata dilalka qarsoon iyo kuwa muuqda iyo afduubkaba inaysan bilaabin Sacuudiga. markaynu u soo daadegno dilkii Jamaal Khashoggi Allah u naxariistee arrinta kiiska si adkeynaysa ayaa waxaa ah in la aqoonsaday ninkii iska dhigay Jamaal Khashoggi asagoo galaya safaaradda iyo asagoo ka baxaya safaaradda albaabkeedii dambe. ninkan magaciisa ayaa lagu sheegay Mustafa al-Madani. ninkan ayaa isku ekeysay Jamaal Khashoggi soo qaatayna ookiyaalihiisa isku soo yeelay garhkiisii soo gashtayna jaakadiisii shaatigiisii oo kale. ma waxay kula tahay in Jamaal Khashoggi loo dilay arrin kiis ku saabsan waryanimo? waxaynu soo qaadan doonnaa dadkaaynu isleynahay waad ka gaartaan komentiyadoodana waad akhrin kartaan. annaga maanka miidiya ahaan waxaan kuu soo bandhigi doonnaa beri subax arrinta kaadaa qarsoon oo idin sababta loo dilay iyo sirta ka dambayso dilka Jamaal Khashoggi. balse ha moogaanin kommentigaagana waa inoo muhiim. barnaamij midkaan la mid intaanu ku kulmi doonno sidaa iyo nabadgelyo.